من قدومي كحجين كلابات قدومي محكمة السرة رئيس الوزراء كحجين ك حبنا قلياشة قدومي قبل كبنادر معمول كيسة سفارتها عيدمها فنانين ميدياها بمالتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya magacaabay guddiga qabanqaabada munaasabadaha xuska 26 Juun iyo 1 Luulyo laga soo bilaabo heer qaran iyo heer gobol munaasabadii hore ee u soo baxday 26 Juun oo aad wada ogeydeen intaynan joogta iyo inta maqan ee daafaha adduunyada ka daawanaysay la socotay ugu horreyn waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo midna madaxweyne hortaada dhammaan saxaafadda ka qayb qaadanaysay hubinta gaarsiinta iyo u gudbinta ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogaan gaar ahaan haddeer oo telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo Universal TV ay toos hawada ugu jiraan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa munaasabadahan oo ay si gaar ah fanaaniinta qaranka gobolada waabari ay uga qayb qaateen doorkoodana ay ku soo aadiyeen ay ku muujiyeen inaan uga mahad celiyo mareeyaha guud agaasimaha gobolada waabari iyo dhammaan fanaaniinta gobolada qaranka ee waabari waxaan sidoo kale aan u mahad celinayaa bahweynta isboortiga oo tartan cayaaro oo munaasabadan 1 Luulyo si gaar ah loogu talagalay maalmahan socotay oo galabta soo gabagabowday ayna ku soo gabagabowday labada koox ee kooxda Banaadir Sports Club ee gobolka Banaadir iyo kooxda horseed ee ciidanka xoogga dalka oo ay ku gacan sareeyeen kooxda Banaadir 3-0 waxaana goolaliyaha tartanka xorriyadda toddobaadka noqday ciyaaryahan qays macalin cabdulle oo inta ciyaarahaasi socdeen 4 gool isaga lahaa ayagana waxaan rabaa inaan u mahad celiyo waxaana koobka lagu bixin doonaa munaasabad gaar ah iyo maamuus gaar ah madaxtooyada qaranka haddii Allah ogolaado waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan ciidamadii xasilinta amniga caasimada iyo xuska munaasabadahan sida muddo weyn leh uga qayb qaatay ayaga iyo talisyadooda iyo madaxdoodaba waxaan si gaar ah mudana madaxweyne aan ugu mahad celinayaa maamulka gobolka Banaadir iyo kan magaalada Muqdisho oo hormuud u yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho aysan la'aantood suurtagelin munaasabadii qaran ee soo dhacay 26 Juun iyo kan haddeer aan taaganahay mudana madaxweyne waxaan cudurdaar ka bixinayaa waxa jooga kooxo badan oo fanaaniinta dalka ah labada munaasabadood guddigana wuxuu si gaar ah u siiyey gobolada qaranka waabari si gaar ah waxaan rabaa marka inaan uga cudur daaranno goboladii iyo kooxihii ka kala soo jeeday dhammaan fanaaniintii qaranka ee dalka inay aan kaga cudur daaranno mudana madaxweyne waxaan kaloon ka cudur daaranaynaa fanaaniin badan oo qurbo joog ah oo nabadgel iyo xasilinta iyo quruxda caasimadda u soo boholiyoobay oo dalka ku sugan oo kala duwan ayagana rabay inay door muhiima ka qaataan gudbiyaanna wixii ay dalka u soo qaadeen tusaanna dadka ka maqan in ay uguna baaqaan in aan uga kala horan maanta Soomaaliya xaaladda ay ku sugan tahay ayagana waxaan leenahay fursado waa badan yihiin waana u sheegnay hortaada ayaana ugu bixinaya waxaan rabaa inaan si gaara fursaddan aniga aan si gaara ugu faa'iidaysto oo aan u mahad celiyo dhalinyarada heesta calanka gobolada waabari mareeyaha guud areeyada iska leh Cabdibuux Yuusuf Xasan aniga si gaaray ii taabataa waxaana ku jira mar walba erayada shalay 13 dhalinyaraha lagu xusaa taariikhdeena soo barannay dadkaas dad bidiyay dagaalkii iyo wixii markii fooda la isdaray
waxaa boqolaal nin doora loo dilay in calankaas la helo xawataaka loo dilay boqolaal nin doora loo dilay taariikhday ku soo xuseen dumar baa daraaddaa dahabkooda iibiyey dumarka dahabka iibiyey ma aha kuwa u xirnaa ilkaha kuwa ugu jiray siiban haddii dadka soomaaliyeed xurmadooda ay wax u goonaysa xitaa ay u bixiyeen taariikhda lagu xusaayey haddana wax laga taabtay dhalinyarada markaa waxay ahaayeen da'yar bay ahaayeen dacad isu aaminay diiwaanka qarankay baaldahab ku leeyihin maanta waxaan fursada mudane madaxweyne aan ku faraxsanahay inay dhalinyarada sida la sheegay iyo haweenka ay burburkiina ka qayb qaateen xornimadana ay ka qayb qaateen maanta waxaan ku faraxsanahay inay dhalinyarada soomaaliyeed u taagan tahay dabadhiska horumarka dalka mustaqbalka iyo aayahoodaba u horeeyo taas waxaa daliil ku ah waxaan rabaa fursaddan inaan mudane madaxweyne hortaada ugu mahad celiyo ubaxa caasimadda oo ayaga isxilqaantay socdaalka nabadda waxaa jira bishii hadda ramadaan ee lasoo dhaafay dhalinyaro fara badan oo u taagneyd afurku gaar dadka soomaaliyeed ee shaqaynaya oo la wada og yahay inay ayaga afur ay soo diyaariyeen ay sii siiyaan inta guryahooda iyo xaafadahooda ay u tagayaan waxaa ugu dambeeyey arxallaawayaashii dalkii argagixiso ee ay ku fuliyeen dhallinyaradeenna goobihii ay u gaarka ahaa oo ay ku xafladaynayeen isugu canayeen isugu imaanayeen waxaa u istaagay waxay ahayd dhalinyaro isxilqaan la baxday dhammaan ururadaas iyo dalladahaas waxaan leeyahay maantana ku ballansannahay inaan fursadaha jira oo dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo aad madaxweynaha ka tahay mudane madaxweyne iyo xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo madax ka yahay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre aad u bandhigteen oo aragtidaada ku salaysan in aan annagana u fulinno ugu adeegno ayagana ay haystaan kana faa'iidaysan doonaan haddii allaha awoodda leh uu ogolaado annaga dhammaan xubnihii guddiga arrintan soo shaqeeya heer gobol iyo heer qaran waxaan leeyahay dhammaantood waxaan kusoo wada gudbinaynaa inaan intaas ugu wada mahadcelino dadkii faraha badnaa ee ka qayb qaatay aan soo sheegay waana laga garan karaa inay munaasabadahani la mid ahayn munaasabadihii hore sidii 26 juun aan halkan ugu sheegay mudane madaxweyne waxaan rabaa gaar ahaan xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre annaga haddaan golaa wasiiradana horena waa ugu soo jiri jirnay laakiin annaga hadda waxay nala siiyey course ashalabaad ama intensive course ka duwan waxqabadkii hore marka aragtidaada ku fulinayay annagana waa ku fulinaynaa ilaahay hortiisna ummadda waa ugu shaqaynaynaa waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo gudoomiyaha kismaha gudoomiyaha gobolka golaha shacabka ahna gudoomiye ku-xigeenka labaad si uu ugu soo dhaweeyo asagana ra-iisul wasaaraha xukuumadda ra-iisul wasaarahana ugu soo dhaweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda oo noo soo gunaanadi doona kadibna calanka saaristiisa ayaan geli doonaa wabilaahi tawfiiq waa mahadsan